Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan khayrta wadaniga la xiriirta halkan waa bartaan YouTube kulena maalin walba nagala socotaan. Maantana waxaan kusoo qaadan doonaa dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegatay inay soo gabagabeysay howlgalkii qaatay labada maalin iyo labada habeen. Waa howlgalkii ugu waqtiga dheeraa. Inkastoo dad tagay meelaha aaga oo dagaalka ka dhacay ay leeyihiin weli waxaa meesha ka socota risaas goos ah oo cabsi fara badan weli ayaa jirto. Dadka qaar waxay sheegayaan in xalay shabaab cusub ay meesha galeen oo howlgalka ay ka qayb qaateen. Cabsi fara badan ay ku beereen dadka xaalkan oo sii adkaaday. Marka waxaa leeyahay maxamed xasaxaad oo odayaasha nabadoonada Soomaaliyeed ka mid ahaa ayaa wuxuu dhahay ani meesha habeenkii ugu horreeyay waa ku jiray waana ku xayrmay. Dowladdan way naga soo dahday inay meesha gurmud noo soo fidiso inkastoo marka dambe ciidamada Haramcad iyo Farxan Qaroole ay noo imaadeen. Marka wuxuu dhahay ciidamadu way dadaaleen oo dhowr iyo 20 qof ayay soo badbaadiyeen oo aniga aan ku jiro. Marka wuxuu dhahay banaanka markii darbiga hoos ayaan ku dhuuntay dhahay markaan meesha ku dhuuntay oo dadkii wuxuu dhahay aad dhibaatada u gaartay xoro dadkii kor u cararo daba kor u fuulay. Dadkaas waa laga daba tagay badankood waa la soo toogtay. Marka wuxuu dhahay waxa dhibaatada yaraa wuxuu dhahay laba qolo ayayd qoladii markii hore qaraxa markuu dhacay isbuuratay oo irida buurato orodka halkaas ku baxday dad badan kama dhiman. Qoladii wuxuu dhahay hoos anaga luqyada iyo meelaha darbiyada hoos ku dhuuntan wuxuu dhahay dad badan kama dhiman laakiin dadka aad u dhamaaday oo dhibaatada ugu faraha badan ay gaartay waa dadkii kor u cararay oo hotel kor u fuulay kuwaasoo laga daba tagay qolqol lagu ugaarsaday oo lagu jibiyay qolalkii qaar musqulaha lagu galay. Marka wuxuu dhahay ugu dambeyn aniga waa kasoo badbaaday laakiin wuxuu aad u eeday dowladda Xashin Maxamuud oo ku eedeeyay dagaalka markii uu dhacay inaan gurmad degdeg lala soo gaarin dadka oo wuxuu dhahay dagaalku wuxuu dhacay 1 saac oo habeenimo. Marka 2 saac iyo bar ayaa ciidanka ugu horreeyay noo imaado dhahay magaalada Muqdisho inta isku jirto waa ognahay wax gurmadan rasmi ah loo fidiyay ma jirin. Marka dowladda aad ay u eedeeyay hagar fara badan meesha way ka muuqataa intaasna dadka way isla dhaxmarayaan oo maalmaha dhan la isla dhaxmaray. Marka wuxuu leeyahay ugu dambeyn guushaas hadda waa la gaaray laakiin wuxuu leeyahay dhibaato fara badan ay dowladda Soomaaliya ka tabanayna maadaama aysan daacad ka ahayn inay dadka Soomaaliya shacabka u gurmato. Wuxuu aad u dheelilay ururka nimanka la yiraahdo Alpha Group oo wuxuu dhahay meesha aad u jibinayo madaafiicna isaga garaacayo dadkan wuxuu dhahay dhibaato fara badan u geystay marka dambeysay nigta ku haya oo darbiyadii la isla duminayo dad shacab ku jiro ayaa qol la soo ridayba qolkii iyo dadka shacab ku jiray hal mar madfac inta la qabsay dhulka la soo dhigay. Marka dadka wax dhintay iyo wax jabay iyo wax rafaaday istaal Madiina waxa la geeyay qoys dhan guriga lagu dumiyay oo qol ay ku jiraan lagu soo dumiyay oo ay dhan wada fir iyo wada dhaawac istaal Madiina la geeyay. Marka Alpha Group waxa leeyahay niman asxaan badan ma aha niman dadaal badan ma aha dadka way dhibaateeyaan. Marka waanu ka sheeganaa Xasan Xaad wuxuu dhahay aad iyo aad ku dhibaateeyaan wax wanaag ay u hayaan shacabka ma lahan. Dowladda Xashin Maxamuud wuxuu dhahay saanadays wax ka bedelin wax saan ku sii socon karo ma laha. Dad fara badan ayaa dhaliil fara badan u soo jeedinaya dowladda Xashin Maxamuud iyo Mahad Salaad wuxuu ku taliyaa lahay in guriga gabiyaantiisa dhulka la dhigo. Marka dadka waxay leeyihiin Mahad Salaad uu gacan bidixeynayo guriga dadka iska leeyahay asaga dad isku reer yihiin ma aha. Marka wuxuu dhahay guriga dhulka hala dhiga anaga wax dan aan ka leenahay ma lahan dowladda sheeg ama ceebteeda soo gaaraysa ayaa macnaha ka badan. Marka dad fara badan la sheekaystay waxa leedahay dagaalkan uu dheeraaday maxay tahay 3 maalmood soo ku sii qaatay. Marka waxay leeyihiin dowladda hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saansi ka duwan ay ula macaamili jirtay nimanka waxay dhahay waa la macaamilayeen xogaa lacag ay siinayeen waxay leeyihiin iskaga baxa meeshan iyo dhibkaan waa geysan kartiin waa geysateen lacagtiin qaatay ilaa la fura ka baxay irid gadaal ka baxayaan baawra meesha u deersan biiga baxayaan xaalad kaleba saas oo soo gaaw dowladda waxay leedahay waan soo afjarnay wax midna ma soo bandhigayso saas loo kala soconaa. Marka taas naftigeedu waa aqli oo dhaamo oo sida hadda wax u yihiin iyo dhibaatada hadda laga soo gaaray ugu dambeyn laakiin waxay leeyihiin hadda waa soo gabagabeynay banaanka ayaan ka joognaa wax dhib oo socdo ma laha wax dagaal oo socdo ma lahan sheeg xaaladuna qabow laakiin qof hadda number 4 soo mar wuxuu sheegay in risaas meesha wali bacbacda ay ka yareyso oo hotelka gudihiisa xabada ay ka dhacayaan oo sheegay laakiin dowladdu waxay sheegtay inay soo gabagabeysay haddii war ka soo kordho oo la soo gabagabeyn waayana ceeb ay ku noqon doontaa. Marka dad waxa leeyahay dhibaato fara badan isbitaaladka la gaarsiiyay ilaa 10 isbitaal oo magaalada ku taal waxa la gaarsiiyay ilaa 50 qof dhaawac ku dhow. Hadda dadka waxay leeyihiin waxa gudaha loo galay hotelka qolqol iyo musqul ayaa loo fiirinayaa dadka meelaha kore meedkooda iyo dhaawacyada ku go'doonsan iyo ayaa la fiirinayaa meelaha qaar inkastoo hotelka intiisa badan bala dumiyay qayb dhan hotelka waa la dumiyay waa wax la yaabo waay xalay 4 saac 5 saac joogto way dhaceysay anaga magaalada Muqdisho ku suganahay joogto aad u maqlay xalay habeenimo 4 saac 5 saac waxa way qarxi waaweyn ay yeeray. Marka dowladda Xashin Maxamuud waxa la waa dowladda ugu tabarta daran xagga amniga uga liidato
dowladdan waxay ku mashquushaa leeyahay xagga kala shaandhaynta ciidamada, kala shaandhaynta wasiirada, wax kala bedelka taliyayaasha, maamulada wax kala bedelka, waxaasay ku mashquushaa leeyahay. wax dan ay amni ka leedahay iyo wax ay howl ah wada ma lahan, wax dadaal fara badan oo ka muuqda ma lahan. marka dowladahii soo marayna saan oo kale ahayn, habacsanaanta waa iska jirtay, gaagaabiskana waa iska jiray oo sidii hore waxba umay soconin. marka waxaa leeyahay hadda waxaa waye xasan maxamed waxaa la dhihi karaa laakiin dowladda ugu liidatay. laakiin inkastoo hadda 3 bilood uu joogo, waxaa la ogaan doonaa qaabka ula dhaqmo iyo maxaa la dhahaa fashilka. inkastoo asagu ciladiisa ay tahay xil qancin dadka inuu qanciyo, adiga maxaa xilaa rabtaa kan qabo, adiga hebeelow maxaa rabtaa halkan qabo, dadka inuu qanciyo oo maanta leeyahay Soomaaliya heshiis ah, dunida heshiis la ah. laakiin hadday Soomaaliya heshiis tahay, dunida heshiis la tahay, dadka kale maxaa loo heshiin weyse, nimanka maalba ku weerara maxaa loo heshiin weyse, hadda aqli al rabo mogta. marka dowladda Soomaaliya waxaa la leeyahay waa dowlad fadhiid ah. magaalada Muqdisho 4,500 oo ciidan ay joogto, ilaa 8,000 oo nimanka la yiraahdo foreigners-ka, dadka ciidamada dibadda ka yimid ah ayaa halkan ku sugan. AMISOM nimanka la yiraahdo 8,000 ay gaarayaan magaalada Muqdisho ku sugan yihiin, iyo hareeraheeda ilaa Elborka Aada Cadde, ilaa dekada, ilaa madaxtooyada ay ku sugan yihiin 8,000 ay gaarayaan. 4,500 ciidamada booliiska iyo ciidamada haramcad iyo duufaan iyo gorgor la isku daray iyo nisa 4,500 magaalada gudaheeda ku xareysan hadda oo joogto. banaanka iska dhaaf wixii meelahan afgoy, meelahan la aado balcad iyo dhankan, iyo ciidamada militariga iyo wixii kale meelaha nabadsuguda meelaha jira, kuwa gobolada iska dhaaf, haramcad meelahaas jira iska dhaaf. waxa magaalada Muqdisho ku sugan hadda waa 4,500 ilaa iyo waxaa la dhahay waa 8,000 oo ajaanib ah. marka 12,000 meesha joogto iyo 500. marka wax amniga sugayna ma lahan, wax control magaalada iska dhex martid meesha hartid mar askariga aniga oo igu dhahay wallaahi inaan been ka sheegin, wallaahi billaahi inaan been ka sheegin. wuxuu igu dhahay nin wadaan taaganahay wax noo tuur, anoo bajaaj saaran oo habeen ay tahay oo inta meel lagu istaajiyo, wuxuu dhahay niyo wax noo tuura, waxaa waaye sheeg wadadaasaan iska taaganahay wax noo tuura. marka askariga xaaladiisu waa saas, waxaa waaye qofkii wax u tuuro $2, $4, $5 ninka u tuuro soco leeyahay, wax dana kama laha. anaga bajaajka wadan dadka waa la istaajinayay, marka wax oo hadda baaritaan ah oo nagu la sameeyay ma laha. laakiin in wax loo tuuro, waxyaa uun loo tuuro oo codsanaya waa dad fara badan iyo bajaaj fara badan oo ka codsada. marka waxaa leeyahay dad gaajada saas u hayso oo maanta wax noo tuuro dhahay, in wadaan taaganahay wax noo tuuro, waa qiiroonaysaa inaa wixii kugu jira u tuurto aad ku qasbantaa, sababtoo waa asgari wada taagan, xaalkiisana siduu yahay ujeedaa. wuxuu ku leeyahay walaalow wax ii tuur, xaal adagan ku jirnaa, wadaan iska taagana, waa qabow, waa roob. marka askarta xataa amniga sugayso waa askartaas oo xaaladaas ku jirto oo iska dhibaataysan. marka ilaahay waxaa fiicnaa lahayd in sheegsaan wax laga bedelo, ilaahayna ummadda Soomaaliyeed ha qanciyo, dhibaatadana ha ka qaado. mar walba marka dambeysana waxaa leeyahay aad waxaa loo dhaliilaya dowladda xasan maxamed qaabka wax u maareeyay, ma salaado nis ka dhigay, aad loo dhaliilaya. Axmed Cali Fiqi oo asagana wasiirka arrimaha gudaha ka dhigay waa la dhaliilaya. marka wasiirka amniga gudaha ninka laga dhigay xataa waxaa leeyahay wasiirnimadaas loo magacaabo xataa kuma qanacsano, in wasiir amni laga dhigo kuma qanacsana leeyahay. marka wax qabanaya yaa wadankan u maqan, yaa waardiyenaya, yaa amnigeeda sugaya, yaa ishaag howlgal iyo wanaag iyo dadaal iyo dadka wax wada ma laha. dadkii xaafadaha magaalada Muqdisho hadda dhex martid, qof kasta wuxuu wada telefoonka nicnic ah oo qeylinaya oo nicnic dhahay. ana xataa telefoonka gurigaan iska dhigay, kaas nicnic banaanka markaan joogo asagaa wataa, ilaa dadka dhan wataba waa isku cod, isku si usoo dhaca, masjidku waa isku si, magaalada dhanna kaasaa la wataa, qof walba telefoonkiisa guriga uga soo tegay cabsi darteed. marka meeshaan amni kama jiro, magaalada Muqdisho dilo amni waa 100%. qofku dhaabeenayo ku sheegay ciyaal weero iyo dhibaato kale fara badan, tuugo guryaha dadka ugu dhaceyso. waxaa leeyahay dhankii kale weeraradii wixii waa iska joogto. marka ilaahay ummadda Soomaaliyeed u maqan, ilaahay saan wax ka bedelo, si wanaagsan oo kheyr qabtan ilaah nooga dhigo. idinkana ku mahadsantiin la socodkeena barnaamijkeenan. waxaan ka codsanayaa YouTube-keena inaad dhiirigelisaan oo like, subscribe iyo share-tana la wadaagtaan. tani kulanteena dambe oo xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo.